الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta mar kale waxaan la soo gunaanaday qayb ka mid ah wada xaajoodkii iyo wada hadaladii baryahan dambe soo socday ee looga hadlayay arrimaha masiiriga ee dalka oo ay ka dowladda federaalka iyo madasha samata bixinta ay muddo dheer ku soo jireen. maanta qayb ka mid ah samata bixintii iyo dowladda federaalka ayaa wada hadalkii soo gabagabeeyey. waxaana lagu soo gabagabeeyey qodobo la isla gartay in maxaan ku rahaa dib u eegis lagu sameeyo oo laga dhex arkay in ay sabab u noqon karaan wadajirka iyo isla jaanqaadka siyaasiyiinta iyo siyaasadda Soomaaliya intaba. waxaan rajaynaynaa qodobadaasi dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo siyaasiyiinta intaba inay nala qaataan. waxaan rabaa halkaa inaan ka dhawaajiyo dowlad dhisiddu waa process ama waa wado la marayo oo aan ahayn hal waqti wax inta la isugu yimid dhamaado maaha. muddo sanooyin ayay soo socotay dowlad dhiska Soomaaliya, haddana way sii socon doontaa. maantana meel macquul ah oo la soo wada gaaray, talo la isku keenay iyo qof walba taladana waxaa ugu habboon midii dadka intiisa badan isla wada qaataan. taladan meesha ay joogtay awalba wada dheer ay soo martay, dad badan oo Soomaaliyeed iyo hay-adihii dowladda ayaa soo martay iyo sidii dastuurka qoray. hase yeeshee haddii dad maxaan ku dhahay ra'yi keenay uu jiro, qof walba dowladdu sidii hore u ballan qaaday ra'yigaas inay dhageysato. walaalahan siyaasiyiinta ee waaye aragga ah ee dalka taladiisa iyo horey u soo maray oo la garanayo oo aan dad ku cusub siyaasadda maanta aan ahayn ayaa fikirkoodii la qaatay, lagu daray. sida dowladda federaalka iyo hoggaankeedu ay horey dhowr maroo hore fikirro jiray wax looga bedelay. fikirkii NCC-da ka soo baxaya baarlamaanka Muqdisho wax badan laga bedelay. dabcan haddana haddii kii baarlamaanka ka soo baxay meelo qaarkood in laga sii toosiyo la isla qaato, la isla ogolaado. ilaa waxa la raadinayaa waa heshiis bulsho oo bulshadoo dhan ay raalli ka tahay ama aan dhahnaba inteeda badan ay raalli ka tahay. sidaas daraaddeed waxaan bogaadinayaa runtii qaybta madasha samata bixinta ka tirsan maanta nala qaatay ra'yigaas hagaajinta iyo toosinta iyo ballaarinta isla qaadashada fikirka dowlad dhiska iyo dimuqraadiyiinta dalka iyo qodobo aasaasi oo aad iyo aad muhiim waa ka mahad celinaynaa. waxaan rabaa intaas kadib inaan halkan ka jeediyo walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba arrintaasi in loo arkay maslaxadda ummadda inay ku jirto, wadajirka ummadda inay ku jirto, xoojinta siyaasadda iyo wada lahaanshaha siyaasadda inay ku jirto. ma aha mid qof dana loogu danaynayay, mid qof looga soo horjeedo. institutionska dowladdana waxaan rajaynaynaa ayaguna sidoo kale inay nala fahmaan oo ay nala qaataan mar walba fikirka dadka Soomaaliyeed iyo baaqa dadka Soomaaliyeed iyo codka dadka Soomaaliyeed ka imaanaya, khaasatan kuwooda mas-uuliyiinta ah, siyaasiyiinta ah, waaye aragga ah, aaraada ay soo jeediyaan mar walba in la soo dhoweeyo lana kaashado. taas ayay ahayd tallaabada maanta aan soo gunaanadnay. laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan u sheegno dowladda Soomaaliya albaabadeedu waa furan yihiin, albaabada wada xaajoodka waa furan yihiin, albaabada wada hadalka iyo midowga fikirka dowlad dhiska Soomaaliya waa furan yihiin, marna ma soo xirmaan. sidaas daraaddeed walaalaha kale oo horey noola soo bilaabana waxaan rajaynaynaa inay nala dhammaystiri doonaan. kuwii kale oo ayagana dareen qabana sidoo kale dowladdu waxay diyaar u tahay inay la fariisato. waxaana wixii lagu ballamay ama lasla soo qaado lagu heshiiyey aad ka arki doontaan communiquega mar dhow dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan la gaarsiin doono, loo aqrin doono. mar kale waxaan u mahad celinayaa akhyaarta nala qaadatay ogolaatay fikirkooda inay noo soo bandhigaan, raalli ka noqday. annaguna runtii waa bogaadinayaa dowladda iyo xubnaha dowladda ka socday ayagana fikirkii lasoo qaatay la qumanaaday, ku raacay, walaalihii keenay, ballan qaaday, kula heshiiyey in loo qaado hay-adaha dowladda iyo nidaamka dib loo waafajiyo, la hagaajiyo. laakiin waa heshiis siyaasadeed oo la isla gartay. insha allah waxaan rajaynaynaa dad kaloo badanna ama inay ka nala aqbalaan ama haddii wax ay qabaan kuwo kale wax ka qabaan ay jiraan. kani wuxuu marayaa meelo badan uu soo maray, meel aad iyo aad u xoog badan uu maanta maraya. wixii kaloo dhimanna waxaad ku arki doontaan communiquega ama baaqal bayaanka laftiisa ku arki doontaan. meeshaas waxaa ka soo muuqato idadiila waa loo sii dhawaaday dowladnimo iyo dimuqraadiyeyn
maxaan leeyahay dowlad dhis iyo dimuqraadiyeen lagu midaysan yahay oo dadku isku raacsan yahay waa loo sii dhowaaday inta dhimanna inaan sii wadnaan rabnaa ilaa laga gaaro goolka u dambeeya laakiin halka shardi oon leenahay waxaa waaye meesha ma sii taagnaanayna horaan u soconayna meel lagu cabaaro lagu nasto lagu nagaado ma joogno muddaan soo joognay meesha waa ku cabaarnay waa soconaynaa tallaabooyin hor lahaan qaadaynaa si dowladnimada soomaaliya ay ula mid noqoto dowladnimada caalamka ka jirtahay walax noo gaar oo caalamku aanu ogolayn ma waxayn karna caalamku wuuna taageeray waana garab istaagay soomaaliyey hadda ka horna waa dhahay aan annaga aan qaadana doorkeenna sac ninkii muxuu ahaa ruji lahay oo saynta uga taagan yahay makacaan la yiraa makacanimada dowlad dhiska soomaaliya aan ka dayno hore aan u soconno aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu